عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الإسلام، مرحبا قد ونيسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أحبتي في الإسلام، يقول الله في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أحبتي في الإسلام، waxaan ugu talagalay fideogan oo ah mid aad u yar inaan walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan markaa u soo bandhigo mucjiso oo qur'aani ah oo aan xalay aan arkay oo aan indhahayga ku arkay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aniga i tusiyay idinla hadlayo. waxa xalay waqti dambe la ii keenay hooyo Soomaaliyeed oo markaa takhtarka si toos ah looga soo waday. takhtarkii ayaa si toos ah looga keenay, waxaa la keenay xarunta quraansaarka. maxaa yeelay takhaatiirtu wax way u qaban waayeen. xanuunka hayana wuxuu ahaa xanuun aad iyo aad u daran. waxaa laga hayay labada garbood ayaa laga hayay hooyada Soomaaliyeed. أحبتي في الإسلام، hooyada Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha xifdiye. waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xiran. mar walba waxa ay markaa ay ku qanacsaneed Allah subxaanahu wa ta'ala. kalaamka Allah subxaanahu wa ta'ala ay mar walba carabkeeda ay ku hayn jirtay. waa sida ay iyadu ii sheegtay. hooyada Soomaaliyeed waxaa la keenay xarunta quraansaarka iyadoo labada garbood laga hayo oo markaa isbitaalkii ay dhaheen wax aan ka qaban karno xanuunkaaga ma jire, waxaa tagdaa emergency-ga tag baa lagu yiri. emergency-ga tag baa lagu yiri. waxaad la socotaan emergency-gu 4 saac ilaa 5 saacadood in la fadhinayo, iyaguna waxba aysan kuu qabanaynin. qawda maqashii waxna ha u qaban bay Soomaalidu ku maahdaa Soomaalidu. hooyada Soomaaliyeed go'aan cajiiba bay qaadatay. ogow haddii aad go'aankan qaadatid maalin maalmaha ka mid ah inuu adigana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu qur'aanka uu wax weyn ku qaban doono. hooyadaas ma aragtay waxa weeyaan walaalayaal, hooyada Soomaaliyeed markii xarunta la keenay intaanan la keenin xanuunka ay qabto wuxuu ahaa dhabarka ayay ka socon weysay oo talaab maysan qaadi karin. hal talaab ma aysan qaadi karin. subxaanallah. oo labada garbood baa laga hayaa oo gaariga marka ma aragtay la saarayo, marka maxaan ku dhahaa laga soo bixinayo, marka oo ay soconayso waxa weeyaan walaalayaal garbaha baa laga hayay. takhaatiirtuna waxaa loogu yeeray, waxaa cajiib ahaa takhtarka kan ugu sarreeya oo yacni ugu cilmiga badan, callama alinsaana maa lam yaclam, ayaa loogu yeeray. oo maxaa yeele hooyadu iska oynaysaa isbitaalka dhexdiisa. hooyadu way iska oynaysaa walaalayaal, way iska oynaysaa. أحبتي في الإسلام، takhtarkii markuu dhiigii ka qaaday oo wax walba ka baaray oo qalab walba isticmaalayna walaalayaal waxay noqotay inuu takhtarba kan kale u waco yiraahdo hooyada way iska oynaysaa, waana fahmi la'aanahay. soo cajiib ma walaalayaal. markaas bay waxay dhaheen wax aad qabtid haba yaraatee ma jirtee, emergency-ga bal u tag. halkaa bal inay seexiyaan ama inay duraan ama inay wax kale u qabtaan bal hooyada waxay tiri ma fadhiisanaya halkaa, ma fadhiisanaye hala igeeyay bay tiri halka qur'aanka lagu akhriyo. xarun qur'aan hala igeeyay bay tiri halka kalaamullah bal hala igeeyo. والله ولا ليال وحلا إيكاني وقت دم بعد العشاء بالله إيكاني.
aniguna bacda alcisha waxaan sameeyey kama aanan cudur daaran hooyo soomaaliyeed oo xanuunsan ogow ma aanan weydiinin maal adduun niyaddeeduna salim bay ahayd oo ma aanan ku xirin wax shardi ah qur'aanku waa mucjiso walaalayaal qofka saarayo iyo kan la saarayaba waa inay niyad wanaagsan la imaadaan hooyadii albaabka xarunta qur'aan saarka waxaa la soo geliyey ayadoo garbaha laga hayo bal markaan kalaamka ilaahay aan ku bilaabay suuratu faatixa waan ku bilaabay oo waxaan ku bilaabay intaan faatixada horta aan ku akhrinin walaalayaal waxaan u duceeyey si kal iyo laba baan ugu duceeyey oo ilaahay baan u baryay wallahi walaalayaal niyaddeedu ilaahay baan u baryey oo waxaan yidhi hooyadan ilaahow caafi iska oynayso suuratu faatixaan ku akhriyey suuratu baqara baan ku akhriyey waxaan ku akhriyey walaalayaal waxaan ku akhriyey allahu akbar aayatulkursigii waattabacuu maa tatlu shayaatiin aayadaha mucjisada ah low anzalnaa hada alqur'aani wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa allahu akbar waxaan ku akhriyey wa ilaahukum ilaahun waaxide oo suuratu baqara ku jirto iyo aayadda ku xigta ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyl waxaan ku akhriyey walaalayaal suuradaha ma aragta sixirka oo suuratu taaha minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa walaqad araynaahu aayaatina kullahaa fakadaba waabaa allahu akbar waxaan ku akhriyey walaalayaal wa qaala fircawn i'tuunii bikulli saaxirin caliim waxaan kaloo ku akhriyey walaalayaal waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayhi yahdii ila alxaq wa ilaa طariiqin mustaqiim yaa qowmanaa ajiibuu daaciya allah aayadaha markaan ku akhriyey waxaan ku akhriyey afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan waannakum ilayna laa turjacuun fatacaala allahu almaliku alxaq laa ilaaha ilaa huwa rabu alcarshi alkariim walaalayaal markaa qur'aan ku dhameeyey ilaahay u baryey oo aan kitaabka qur'aanka dhabarkii xanuunayay baan ka saas saaray bal firsha mucjisadan cajiibka ah qur'aanka kariimka ah kitaabkii oo xiran ayaan intaan qur'aan ku akrinayay dhan dhabarkaan kaga salaaxayay oo aan kaga taataabanayay allahu akbar hooyadaas soomaaliyeed waa hooyo da'ah walaalayaal hooyo da'ah weeyaan ilaahay ha xifdiye qiyaastii waa 50 ilaa 60 sano allahu akbar markaa kadib ayaa markaa qur'aanka u dhameeyey oo aan u duceeyey bay istaagtay allahu akbar way yaabtay tallaabadii bay qaaday way boodbooday baan ku yidhi walaalayaal wallaahi alcadiim uqsimu billaah ilaah baan maqlaye waa ay boodbooday hooyadaa way oysay wiilkeedoo la socda bay hab siisay waxay tiri bal arag sidaan u ordaya bay tiri ilaa waxaan xasuustaa gaariga barkinka way ordaysay hooyadaa walaalayaal oo waxay dhehaysay yalla iqabanin ayay dhehaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala sooma caafin walaalayaal niyad saliim ayay la timid hooyadaa niyad saliim ah go-aan ayay qaadatay soo maha walaalayaal go-aan ayay wallahi qaadatay oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacala uuna caafin karo qur'aanka uun inuu xalkeeda ku jiro bal hooyadaa waxaa la yaabay anigaba iga orod badneed wallaahi horteeda bay saas u cararaysa oo adkaar baan ka dabawaday maxaa yeele anigii baa yaabay oo waxaan idhi hooyadaa garbaha laga hayay baa maanta ku hor ordayso dhag 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 waana socon karin oynays way oynaysay markay imaanayso walaalayaal way oynaysay wallahi way oynaysay walaalayaal waxaan doonayaa mucjisadan qof walba inuu arko walaalkeygiiyo walaasheediiyo haddii aad daawatay sii sheergaray oo laagna saar si walaalaha kale uu u gaaro asxaabtaada dhan ay u gaaraan biidni illaahi jala wacalaa wallahi qur'aanku waa mucjiso walaalayaal 1400 sano kahor ayuuna soo degay waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid a qofka marka qur'aanka lagu aqriyo sixirka iyo jinka ma adkeysan karo dadka badanaana xanuunaadka haya waxay u badan yihiin xanuunkaas walaalayaal sixirka isha iyo jinka dhibaatooyin fara badan ayuu ummadda ku hayaa muslimiinta waxaan leeyahay qof walba xanuun iska dareema intuusan takhtarku uusan niyadda gelin
kow qur'aanka niyadda ha geliyo kadibna sheekha kan ugu dhow ee uu ku tuhmaya khayr iyo wanaag ha u tago biidni illaahi jala wacalaa halkaa waan kusoo gabagabeynayaa biidni illaahi jala wacalaa xayaakum allahu wabayaakum wajazaakum allahu khayra ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga yeelo ahlulqur'aani ahlullahi wa khaasatuh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الإسلام مرحبا دي قد ونيسان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أحبتي في الإسلام يقول الله في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أحبتي في الإسلام waxaan ugu talagalay fideogan oo ah mid aad u yar inaan walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan markaa usoo bandhigo mucjiso oo qur'aani ah oo aan xalay aan arkay oo aan indhahayga ku arkay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga i tusiyey idinla hadlayo ayay ka socon weysay oo tallaab maysan qaadi karin hal tallaab ma aysan qaadi karin subxaana allah oo labada garbood baa laga hayaa oo gaariga marka maaragtay la saarayo marka maxaan ku dhahaa laga soo bixinayo marka oo ay soconayso waxa weeyaan walaalayaal garbaha baa laga hayay takhaatiirtuna waxaa loogu yeeray waxaa cajiib ahaa takhtarka kan ugu sarreeya oo yacni ugu cilmiga badan callama alinsaana maa lam yaclam ayaa loogu yeeray oo maxaa yeele hooyadu iska oynaysaa isbitaalka dhexdiisa hooyadu way iska oynaysaa walaalayaal way iska oynaysaa axibatii fi lislaam takhtarkii markuu dhiigii ka qaaday oo wax walba ka baaray oo qalab walba isticmaalayna walaalayaal waxay noqotay inuu takhtarba kan kale u waco yiraahdo hooyada way iska oynaysaa waana fahmi la'aanahay soo cajiib maaha walaalayaal markaas bay waxay dhaheen wax aad qabtid haba yaraatee ma jirtee emergencyga bal u tag halkaa bal inay seexiyaan ama inay duraan ama inay wax kale u qabtaan bal hooyadaa waxay tiri ma fadhiisanaya halkaa ma fadhiisanaye hala igeeyey bay tiri halka qur'aanka lagu akhriyo xarun qur'aan hala igeeyey bay tiri halkaa kalaamullah bal hala igeeyo wallaahi walaalayaal waxaa la ii keenay waqti dambe bacda alcisha baa la ii keenay aniguna bacda alcisha waxaan sameeyey kama aanan cudur daaran hooyo Soomaaliyeed oo xanuunsan ogow ma aanan weydiinin maal adduun niyaddeeduna salim bay ahayd oo ma aanan ku xirin wax shardi ah qur'aanku waa mucjiso walaalayaal qofka saarayo iyo kan la saarayaba waa inay niyad wanaagsan la imaadaan hooyadii albaabka xarunta qur'aan saarka waxaa la soo geliyey waxaa xalay waqti dambe la ii keenay hooyo Soomaaliyeed oo markaa takhtarka si toos ah looga soo waday takhtarkii ayaa si toos ah looga keenay waxaa la keenay xarunta qur'aan saarka maxaa yeelay takhaatiirtu wax way u qaban waayeen xanuunka hayana wuxuu ahaa xanuun aad iyo aad u daran waxaa laga hayay labada garbood ayaa laga hayay hooyada Soomaaliyeed axibatii fi lislaam hooyada Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiye waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran mar walba waxa ay marka ay ku qanacsaneed Allah subxaanahu wa tacaala kalaamka Allah subxaanahu wa tacaala ay mar walba carabkeeda ay ku hayn jirtay waa sida ay iyadu ii sheegtay hooyada Soomaaliyeed
waxaa la keenay xarunta quraansaarka iyadoo labada garbood laga hayo oo markaa isbitaalkii ay dhaheen wax aan ka qaban karno xanuunkaaga ma jire waxaa tagdaa emergencyga tag baa lagu yiri emergencyga tag baa lagu yiri waxaad la socotaan emergencygu 4 saac ilaa 5 saacadood in la fadhinayo iyaguna waxba aysan ku qabanaynin qowda maqashii waxna ha u qaban bay Soomaalidu ku maahdaa Soomaalidu hooyada Soomaaliyeed go'aan cajiib bay qaadatay ogow haddii aad go'aankan qaadatid maalin maalmaha ka mid ah inuu adigana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu quraanka oo wax weyn ku qaban doono hooyadaas ma aragtay waxa weeyaan walaalayaal hooyada Soomaaliyeed markii xarunta la keenay intaan la keenin xanuunka ay qabto wuxuu ahaa dhabarka ayadoo garbaha laga hayo bal markaan kalaamka Ilaahay aan ku bilaabay suuratu Faatiha waan ku bilaabay oo waxaan ku bilaabay intaan Faatixada horta aan ku akhrinin walaalayaal waxaan u duceeyay si kal iyo laabaan ugu duceeyay oo Ilaahay baan u baryay wallahi walaalayaal niyadeedu Ilaahay baan u baryay oo waxaan yiri hooyadan Ilaahay caafi iska oynayso suuratu Faatihan ku akhriyay suuratu Baqara baan ku akhriyay waxaan ku akhriyay walaalayaal waxaan ku akhriyay Allahu akbar ayatul kursigi wattaba'u ma tatlu shayatin آياتها معجزة لو أنزلنا هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء الله أكبر وحنكو أخري وإلهكم إله واحد أو سورة بقرة كجرتو هي آيات كحكت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وحنكو أخري ولا ليال سورة دها معركة سحرك وسورة طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى الله أكبر وحنكو أخري ولا ليال وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وحنكلوكو أخري ولا ليال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله آياتها مركان كو أخريي وحن كو أخريي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والله ليال مركا قرآن كودمي إلهي أبريي وأن كتابك قرآن كنبركي حنوني بان كساس صاري بل فرشة معجزة عجيبك قرآن كريم كتابك يوحرن أيان أنت قرآن كو أخرين نبر كان كيسلاحيي وأن كجتا تابنيي والله أكبر هو يدا الصوماليات وهو يدأه والله ليال هو يدأه ويان إلهي حفظيه قياستي وكنتن إلى 6 سنة الله أكبر مركا كذب أيا مركا قرآنك أدميي وأن أدعيي بي استاكت الله أكبر ويجابتي تلابدي بي قادي ويبودي بانكو يرولا ليال والله العظيم أقسم بالله إله باني مغلي ويبودي هو يدا ويأويسي wiilkeedu la socda bay habsiisay waxay tiri bal arag sidaan u orday bay tiri ilaa waxaan xasuustaa gaariga parkinka way ordaysay hooyada walaalayaal oo waxay dhahaysay yalla i qabarin ayay dhahaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala soo maafin walaalayaal niyad saliim ay la timid hooyada niyad saliim ah go'aan ayay qaadatay soo ma walaalayaal go'aan ayay wallahi qaadatay oo ah إن إلهي سبحانه وتعالى ونعافين كرو قرآن كون إنه حال كذا كجرو بل هو يدا وحالي يا بي أنا جبي أرض بالنت والله